ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalla ka dhan ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Owdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa fuliyay ciidanka kumaandooska ee Gorgor waxaana laga sameeyay deegaanada Shaamgare, Raqayle, Raydabley iyo deegaano kale oo kooxda Al-Shabaab ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka. Ciidanka xoogga ayaa waxay qaarajiyeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ku dhuumanayay godad iyo dhufaysyo ay ka qoteen deegaanada howlgalka laga sameeyay. Saraakiil ka tirsan ciidamada kumaandooska Gorgor ee hogaaminayay howlgalka ayaa warbaahinta codka ciidanka qalabka sida u sheegay in ay howlgalka ay ku dileen 13 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo horjoogayaal sare iyagoo xusay inay burburiyeen goobo argagixisada gabaad ka dhigan jireen. Ciidanka kumaandooska Gorgor ayaa ku raadjooga maleeshiyaadkii ka farxaday deegaanada howlgalka laga sameeyay waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay dagaalka lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab.